runtii saaxiibaday iga horeeyay xildhibaanada ahaa waxaan la qabaa iyo guud ahaan xildhibaanada golaha shacabka dareenka ku saabsan amniga guud ahaan golaha shacabka iyo xildhibaanada iyo guud ahaan dalkaba waa nasiib darre aada iyo aada u weyn saaka in kaararhkayagii la isugu dirayo whatsappka oo laleeyahay kaama soo daynaa way soo noqnoqotay ilaa maalintii halka kan laga soo noqday guddiyadu isdoorteen iyo weliba intii kalfadhigii hore socday waxaa socotay dood ku saabsan xasaanadda sharafta iyo amniga xubnaha golaha shacabka iyo xildhibaanada guud ahaan dalka oo dhan halkii lagama qaadin maalin walba waa kasii daraysaa awalba annagoo ammaan darrada la wadaagnay shacabka kale ee soomaaliyeed ayaa haddana waxaa muuqata in annagii saaka aan halkaa marayno haddaan annagoo halkaa marayno waxaan dadka soomaaliyeed ee kale aan matalo u doonayno maxay tahay sida xildhibaan shariif uu sheegay waxaan rabnaa mudane guddoomiye halka kan hay-adaha amniga khuseeya dhammaantood in golaha la keeno oo golaha lagula xisaabtamo taas si xasilooni darrada ka jirta dhinaca ammaanka xildhibaanada dalka loo maamulo iyo 275 xildhibaan baa fadhiya afartameeya wasiirra noqday wasiirrada noqday waxay gabeen oo ka baxeen saaxaddii xorriyaddii ay shacabka ku mateli lahaayeen aniga wasiir baan soo ahaa oo aqaanaa xildhibaanku markuu wasiirka noqdo wasiirnimadiisa ku urura golaha inta soo hadhay baa shacabkii soomaaliyeed la rabaa inay codkooda gaadhsiiyaan 3 waxyaabood oo waddankan ka muuqda waxaan rabnaa in wax laga qabto waa marka koowaade mudane guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenno sida aada noo hogaaminaysaan kuma qanacsanin aada bay u hooseysaa waa mas-uuliyaddii aanu inii igmadnay nooca ahayd waxay u eg tahay maalinba maalinta kasii dambaysa inaad hoos u dhigaysaan waana ta keentay saaka in sharaf dhaca inta la arkay leeg uu nagu dhaco idinka ayaa la idinka arkay idinkaa ismaamulay baabuur isku wareejay ciidan isku wareejay aqaladiina camirtay dadkaad mas-uulka ka ahayd doortayna xilla iskama idin saarin sharaftooduna mayna ilaalin mana idin xurmayn waxaan rabnaa inaan idinla xisaabtano si rasmiga idinla xisaabtano ama si rasmiga noo hogaamisaan ama shalay wadda annaga aynu keenin aynu meesha kula dhexayno taa horta halkaasaa kaga tegaya qodobka labaad waxa weeye waxaan rabnaa qodobka 7aad ee dastuurku awoodda uuna siinayo inaan ku dhaqanno oo wax ku maamulano oo sharaftayada iyo karaamadayada iyo amnigayaga iyo noloshayada intaba aanu meel ku ognahay ay sugan tahay baan doonayna hadda miisaaniyad baa ina hor taalla sanadkii hore tegey iyo sanadkan labadaba guddoonkiinaas wax soo kororsaday intayada kalena waa tuurteena xildhibaanada ah waxa weeye cidaa wax ka weydiinayna maleh sharaftayada iyo noloshayada iyo amnigayaga cidaa wax ka weydiinayna maleh halkaan keenaynaa iyadana waan difaacanaynaa haddaad nagu garab gelaysaan nagu garab gala haddaan nagu garab gelayna iska koo celinayna qodobka 3aad waxa weeye dalkan annagaa madaxa annagaa shacabkuna soo doortay annagaa madaxweynaha dooranay ra-iisul wasaaraha annagaa dooranay wasiirada annagaa dooranay xasaanad siinay annagaa ugu sarreynaa wixii naloo doortay xil baa naga saaran
waxaanu rabnaa inaanu la xisaabtan buuxa la galno dawladda xukuumadda inaanu si buuxda ula xisaabtanaan doonayna oo kalfadhigan uu noqdo kalfadhi xisaabtan waxaanu idinka sugaynay inaad ajando noo keentaan oo intii kalfadhigu xidhnaa soo diyaarisaan oo sida maamul goboleedyada usoo samaysaan oo halka kan aad nagaga ansixisaan ajandaha qodobaysanoo maalinba wax laga hadlayo xeerar baad loo ordaysaan weliba xeerar dulaysan oo intooda badan dulaysan tahay baad loo ordaysaan xeerarku waa qodob ka mid ah ajandaha hal qodob oo ka mida weeye xeerarku ajandaha ajandana waa idin soo samayn garow waa aadeen waxaad halkaasaa soo daba gasheen idinkoo farabara baa nagu soo noqoteen waxa weeye marka waxaanu rabnaa ajando qodobaysan oo laga doodo oo maalinba la yidhahdo qodob hebel baa inoo yaalay oo sidii carruurta fariisanaysa midba aan lagu dulfurin baanu doonaynaa inaan meesha waddankan uu ku socdo golahan inuu golo shacab oo sharaf leh oo dadka metela oo aada nagu hogaamisaan aadna uu noqdo ayaanu doonaynaa waa xisaabtamaynaa maalin walba wasiir baanu u yeedhaynaa ra-iisul wasaarahaan u yeedhaynaa madaxweynahaan u yeedhaynaa waxa dalka laga qabtay muddadii hadda waxay baan rabnaa inaan wax ka ogaano heshiisyada la gelay baan rabnaa inaan ogaano waxa la kiiniya ogeysay qaad bay nagu soo taabasho kiisahayagii dadka la siin jiraya waa la gooyey waa laga qaaday meel caawa wax noo marayaan ma garanayno dalka inaan xisaabtanaan doonaynaaye ama nagu hogaamiya ama ka soo dega meesha asalaamu calaykum